daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku eegi doono oo ku soo dhaweyn doono sanadka cusub ee 2014 kuna macsalaameyn doono sanadkii tagay 2013 barnaamijka waxa ay la qayb qaadanayaan dhalinyarta ku dhaqan magaalada Nairobi oo nasiib u yeeshay in nagula dabaaldegaan sanadka cusub ee 2014 dhanka kalena waxa barnaamijka la qayb qaadanaya fanaaniinta amaba kooxda Hillaac oo halkan aad ka wada arkaysaan iyagoo fadhiya barnaamijka waxa idin soo saaray anigu Cabdixasiis Ibraahim Cali Dheera barnaamijku waxa uu idin kaga imaanaya xarunta uu TV-gu ku leeyahay magaalada Nairobi marka ugu horeysa hadaan idin baro kooxda fanaaniinta barnaamijka ay la qayb qaadanaysa waa gudoomiyaha kooxda Hillaac Abwaan Bili Gurufo oo garabkayga fadhiya iyo waliba lamaanaha codkooda aanu kala dhicin liibaan jigjiga oo isaguna garabkayga fadhiya iyo waliba qaaliladan haddii aan ku xijiyo Xabiib iyo waliba Abwaan Maxamed Dhicisow iyo waliba fanaanka codkiisa halaasiga yahay Maxamed Galayr dhanka kalena waxa iga fadhiya Iqriyar oo aad wada jeceshiin iyo waliba Yurub Beelo haddii aan ku bilaabo fanaaniinta amaba kooxda Hillaac waxaan siinaya kelmadii laba ay ku soo dhaweynayaan sanadka cusub ee 2014 waxaan ku bilaabayaa abwaanka amaba horkaca kooxda Hillaac sanad wacan oo wanaagsan ilaahay sanadka sanadkiisa kale hayna ku gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash inagoo nabad qabna iyo Hillaac oo halkeeda ka sii hormartay inaan mar labaad iyo mar saddexaad isa soo hor fariisano sanadka cusub waxaan ku soo dhaweynaynaa macnaha bashbash iyo barwaaqo inuu noogu maartay bilowdo nooguna dhamaado hadii ilaahay idmo ayaan ku soo dhaweynaynaa dhammaan macnaha asxaabta iyo macnaha dadkan sharafta leh hor fadhina waan salaaminaa kulli soo dhawaada ayaan saaxiibayaal ilaahay kankiisa kana barwaaqo iyo bashbash nagu gaarsiiyo bismillaahir rahmaanir rahiim ilaah ma mahadle ilaahay laga cabsado marka hore nabigana lagu saliyo waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa sanadka cusub sanadka tagayna oo macsalaameynaa sanad wacan oo wanaagsan aad baan idin salaamayaa sanad wacan sanad wanaagsan waxaan rajaynayaa sanadaan inay noqoto sanad nabdoon oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ugu dhalato nabad bashbash iyo barwaaqo iyo liibaan waan idin salaamaynaa dhammaan hadaynu nahay kooxda Hillaac maasanidin dhammaan asxaabta waan salaamayaa meesha fadhido qaasatan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sanad wanaagsan ayaan leeyahay asxaabta sharafta leh oo meesha fadhidana in badan ayaan salaamayaa bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogta dalkii dibadba waxaan salaamayaa hablaha quruxda badan horteeda fadhiya iyo wiilashaba waxaan kaloo salaamayaa madaxda Soomaaliyeed meel walba ay joogaanba waxaan leeyahay sanad cusub sanadkan kiisa kale ilaahay anoo ka soo inaan ku wada ciidno Soomaaliya meel walba ay ahaataba waxaan u mahadcelinayaa Hon Cable TV oo programkan hogaaminaysa aad baan ugu mahadcelinayaa kooxda fanaaniinta Hillaac oo hogaaminaya Bili Gurufo waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin qaas ahaan waxaan salaamayaa fanaaniinta Soomaaliyeed waxaan salaamayaa abwaaniinta Soomaaliyeed waxaan halkan qaas ahaan ka salaamayaa saygeyga Yuusuf Colaad ilmahayga Maxamed Ilhaan Cabdirasaaq sanadka cusubna waan ugu hambalyeeynaa sanad cusub oo wanaagsan waan idin salaamay dadweynaha meesha soo fadhiyo maxaa la yiraahdaa gabdhaha quruxda badan iyo wiilashaba waxaan leeyahay sanad wacan bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan idin salaamayaa aqyaarta meesha fadhida Soomaali weyn aad baan u salaamayaa Soomaali meel kasta ay joogto sanad wanaagsan sanadkan sanadkiisa ilaahay khayr iyo caafimaad nagu gaarsiiyo waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan walaalay aabahay eeladii dhan abwaaniinta Soomaaliyeed intii muuqayga garanayso daawadayaal meel kasta ku sugantiin waxaan idin leenahay hadaan u naybada Hon Cable xarunta uu TV-gu ku leeyahay magaalada Nairobi sanad wanaagsan oo wacan sanadka sanadkiisa ilaahay bashbash iyo barwaaqo nagu gaarsiiyo hadii aanu barnaamijkeena ugu dabaaldegayno sanadka cusub ee 2014 gudaha u galno waxaan ku bilaabayaa horkaca kooxda Hillaac amaba Abwaan Bili Gurufo waxaan weydiinayaa su'aasha maxaa idin ku dhaliyeen asaastaan kooxdan Hillaac bismillaahir rahmaanir rahiim kooxdan waxaan aasaasnay December 22
waxaanan u aasaasnay dareen ka yimid fanaaniinta iyo abwaaniinta dhexdooda kadib markii la arkay in loo baahan yahay koox Soomaaliyeed oo kuwa jira barbar socota oo ay Soomaalidu waxay u baahnaayeen oo dhameystiran laga helo inaan fanka hormarino inaan afkayaga Soomaaliyeed hormarino inaan qurbaha aan joogno dhaqanka aan ku bilno inaan ilaa iyo wadankii gaarsiino baranjiyada anagoo koox oo dhameystiran maadaama aan qurbaha ku aasaasnay inaan u laabano inaan helno sidii barnaamijkii kooxo Soomaaliyeed baa jiray kaliya qarankii ma burburina markay kooxii qarankii burburay kooxiina way burbureen wax walba dadka asaasi u ahaa iyo golihii maadadaalintuna way lumeen markaan intaas kadib aragnay waxaanu go'aansanay inaanu sameeyno koox dhalinyaro ah oo isugu jira hablo iyo inamo abwaaniin dhamaantood bay u dhan yihiin inaanu sameeyno oo dadka wacyi geliya dhaqanka ka hadla wadaniga heesaha soo saara iyo gabayada aana yeelano rugniga kala soo xiriiro idinkana waxaan idinka rajaynaynaa intiina aan daawanaysa iyo inta hadda ka soo qayb gashayba inaan idinka helno gacmo buuxa iyo garabgal abaan weli ka bixin waxaan ku raacinayaa maxay tahay ujeedka aad ka damacsantihiin kooxda Hilaac kooxda Hilaac waxaan ka damacsanahay inay noqoto kooxdii waa bari ee qaranka Soomaaliyeed ee hadda dadkeedu waa weynaadeen meeshay gaartay inaan gaarsiino haddii aan u gudbo fanaaniinta oo dadka macaaneen ugu martida barnaamijka in ku soo dhaweynayno sanadka cusub 2014 waxaan ku bilaabayaa Liibaan Jigjiga Liibaan waxaan ku leeyahay sanad wanaagsan sanad lamida maxaad ku xasuusataa sanadii tagtay 2013 wallaahi waxaan ku xasuustaa dawladii Soomaaliya oo ra'iisul wasaarina la casilay ra'iisul wasaare cusub noo doortay maxaad noo haysaa oo waxaad arkaysaa goobjoogayaasha iyo daawadayaashu inay ka sugayaan waxaad caawa meesha ula timid waxaan caawa u hayaa heesta sanadka cusub lagu soo dhaweynayo iyo hees kale heesta yaa ereyadeeda leh ereyadeeda waxa sameeyay Abwaan Bilig Hurfe laxanka waxa saaray Saciid Nuur Guura Jinshumi muusigana waxa saaray Axmed Wali Ibrahim Furule oo Hargeysa jooga bal nagu luqeeyo sanado wacan oo wanaagsan sanado wacan oo wanaagsan sanado wacan oo wanaagsan sanado wacan oo wanaagsan saban iyo saban baan siliqiyo haradiyo saasiyo orad ku raagnaye sanad yahow barwaaqiyo saymar roob la noqo saban iyo saban baan siliqiyo haradiyo saasiyo orad ku raagnaye sanad yahow barwaaqiyo saymar roob la noqo midka saxalku naga baxo arligeena Soomaaliyey samcadu lahan jiray atiro ku beego no samada noqo saxalku naga baxo arligeena Soomaaliyey samcadu lahan jiray atiro ku beego no samada noqo inta kala sadashee ruuxa meel ku simayey sakayihii dagaalamay sanad yahow نقري
inta kala socdaashee ruuxba meel ku simayey sokeeyihii dagaalamay sannadyahow noqoray sannadyahow badhaadhiyo halkakii u dhiga nabad farmawayda curatiyo sifihiisu kul yahay sannadyahow badhaadhiyo halkakii u dhiga nabad farmawayda curatiyo sifihiisu kul yahay heestu waxay ahayd hees ducaa ah waxaan malaya goobjoogayaashiina wada maqlayaan waxaanu leenahay aamiin goobjoogayaashan waxaan ka sugay inay yiraahdaan iyaguna aamiin si ilaahay ducadaasi noogu aqbalo haddii aan barnaamijkeena gudaha u sii galo waxaan haatan soo qabanayaa fanaanada iyadana codka halaasiga leh iqrayari waxaan ku leeyahay sanad wanaagsan oo wacan haddii aan ku weydiiyo sanadkan aynu ka soo tagnay 2013 maaha sanadkii fankaaga ugu horumarsanaa intii aad ku jirtay fanka Soomaaliyeed waxaan xasuustaa oo kaliya bilaadan ah qalbigayga mar walba ma joogo laakiin waxaan xasuustaa wiilkayga yar oo hadeerta yaraanka uurkiisa habeenkan qaaday taas u bisaan xasuustaa wax kale laakiin ma xasuusto hay iqrayari maxaad sanadka cusub ugu tala gashay aad noo haysaa maanta sanadka cusub waxaan ugu talagalay hees jaceyl aniga waxaan qaadeynaa galeer fanaankaas oo aad taqaaniin oo caanka ah waa kaas yaa hees ereyadeeda leh
heesta erayadeeda waxaa iska leh abwaan dhiciso laxanka waxaa iska leh cali shaacir muusigana laxanka waxaa iska leh soori jinni shumi muusiga xasan cujeere cajabi haataba waxaan kaa sugnaa waa heestii inaad noogu dhufataan sidii laydhiif amaba laacmeel ka baxay naftaydaada adaa waran sidii laydhiif amaba laacmeel ka baxay naftaydaada adaa waran labeni laazimo adan kulumay labeni laazimo adan kulumay lubiga laakiin hagelin labeni laazimo adan kulumay labeni laazimo adan kulumay lubiga laakiin hagelin laabtiyo wadna adaa kule kaysano lalaado labxada ragiyo laabtiyo wadna adaa kule kaysano lalaado labxada inay liiqliiqati si aan luufluufu iman inay liiqliiqati si aan luufluufu iman lubiga laakiin hagelin inay liiqliiqati si aan luufluufu iman inay liiqliiqati si aan luufluufu iman lubiga laakiin hagelin
meesha waxbaa ka dhacay taasina waxay ahayd heesta ay ku wada luuqeynayeen ee qayra iyo weliba fanaanka maxamed galleer waxaanay faray ka qodnayn daawadayaal fanaaniinta noogu casuuman barnaamijka aynu ugu dabaaldegayno sanadka cusub ee 2014 haddana haddaan soo qabto fanaanka codkiisa loloodin laaya mm xabiib waxaan weydiinayaa su-aasha koowaad oo ah goormaa timid magaalada nairobi magaalada nairobi waxaan imi 2000 kamid waa inay lawan u maranay waqtiga lawan waqtiga okay 2010 baa timid adigoo fanaan aad timid mise adigoo fanka waxaad ku bilowday magaalada nairobi maya anoo fanaan baan imi nairobi xageed ku bilowday fanka waxaan ku soo bilaabay fanka waxaan ku soo bilaabay horta anu markii horeba waxaan anoo yar baan horta hees jiray kowdhe aroosada iyo maartay meelaha maartay oo ciyaarka xaafadda maartay baan ka hees jiray laakiin fanka toos waxaan ugu bilaabay qaxootiga xagareele fan qaxooti laga soo bilaabay weey waan gartay maxaad sanadka cusub ee 2014 ka ugu talagashay sanadka cusub waxaan ugu talagalay horta waxyaalo badan baan ugu talagalnay kowdhe maxaa ka mid ah heeso jacayl ah bal midna soo qaba ya midna soo qaba mid baan soo qabanay waxaan soo qabanay heeska leeyahay muuski jaamica camba jilib ku yaal waxaad noo qaadaa dhowr erey ayadoo bila muusiga موسكي جماميو عم بتشيلي بيال عم بتشيلي بيال عم بتشيلي بيال موسكي جماميو عم بجيلك يا عم بجيلك يا عم بجيلك يا موسكي جماميو عم بجيلك يا عم بجيلك يا عم بجيلك يا jeex dogliyo tooxay jigalo jeeganta roo ku janjeersato jiifan biyo jeeganta roo ku janjeersato jiifan biyo jeex dogliyo tooxay jigalo jeeganta roo ku janjeersato jiifan biyo jeeganta roo ku janjeersato jiifan biyo adiguna jamaha iso jiidato jeelan qaba darta kama joogi karo kama joogi karo jalacada indhaha sida loo jantaa adiguna jamaha iso jiidato jeelan qaba darta kama joogi karo kama joogi karo
بجاديو يا أنا جرينو جوهر الموت جاهل وحام جعل أبو جوهر الموت جاهل وحام جعل أبو وحشات بجاديو يا أنا جرينو جوهر الموت جاهل وحام جعل أبو جوهر الموت جاهل وحام جعل أبو جل على إنها سيد لو جنتها عادي قولوا جما دي سوتشيتو جيران غابة ترتا كما جوجي كارو كما جوجي كارو جل على إنها سيد لو جنتها عادي قولوا جما دي سوتشيتو جيران غابة ترتا كما جوجي كارو كما جوجي كارو جل على إنها سيد لو جنتها عادي قولوا جما دي سوتشيتو جيران غابة ترتا كما جوجي كارو كما جوجي كارو waxaan ku weydiinayaa xabiib ereyada heesta ayaa iskale laxanka iyo weliba muusiga bal noo raa intaas ereyada waxaa sameeyey nin la yiraahdo cabdicasiis laba go'ole nin la yiraahdo ayaa sameeyey muusigana waxaa ku laray xasan xujeeri cajabi laxanka iyo codkana ana ku laray waan gartay daawadayaal weli waxaan bartamaha uga jirnaa barnaamijkan ugu dabaaldegaynay 2014 sanadka cusub haatana waxaan soo dhaweynayaa fanaanka amaba fanaanada qaaliladan waxaa tahay fanaanad dhalinyar markay dumarka amaba haweenku markay fanka soo galayeen dabcan fanka Soomaaliyeed waxay kala kulmaan dhibaato badan amba caqabado badan maxaad kala kulantay markii aad bilaabaysa fanka caqabada ee dhanka waalidka ahladaada ambaba fanaaniinta kale aad ku xirnayd markaas wallaahi runaantii aniga kuleeto wax caqabada oo dhanka family-ga horta family-ga waa ogtahay qof kasta gabadhiisa ama wiilkiisa ma jecel inuu heeso laakiin haddana iyadoo sidaas ay tahay waa iska diraqsada leh goormaad bilowday fanka waxaan bilaabay fanka 2011 imise heesood baa aad leedahay oo aad shakhsiyan u qaadaado wallaahi heesayga ma xasuusto way badan yihiin laakiin waxaad ku soo baxday ku soo shaaxbacday markii ugu horeysay heesa ay dad hore lahaayeen si heesadood si gooni u leedahay wallaahi heeskooba ma baqaani oo Soomaa heesa aniga leeyahay miraha iyo laxanka oo Soomaali weyn leeyahay ku soo baxay maxaad ugu talagashay soo dhaweynta sanadka cusub ee 2014 waxaan ugu talagalay hees la yiraahdo Shangaan oo reexamara ereyada iskale ereyada iyo laxanka waxa iskale nin la yiraahdo Daahir Cali Sow muusigana iyo kularay muusigada Ujeeri Cajabi lagu dhif shimbirtii wala weyn shalamboodi janaale shiniila wixii geeyay haddii sheegi karee shimbirtii
شلبادي جنان سنين وحقي هدي شيء كريم وانت شكيو شافي وسنتين شحشحان دمانيو شاك مال وذا 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 شرد وانا بلا شرح وانا بما شاه وانا عباية شرك عودي بالله شرك عودي بالله شيطان كهبوغا شرد وانا بلا شرح وانا بما شاه وانا عباية شرك عودي بالله شرك عودي بالله شيطان كهبوغا شنقاني أضوك برباري شبسانا نقول شبسانا نقولي شباب اللي باحي وحياي كشيرين أدي شرحيسي وحياي كشيرين شنقاني أضوك برباري شبسانا نقول شبسانا نقولي شباب اللي باحي وحياي كشيرين أدي شرحيسي وحياي كشيرين شحشحان دمانيو شاك مال وذا 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 شرد وانا بلا شرح وانا بما شاه وانا عباية شرك عودي بالله شرك عودي بالله شيطان كهبوغا شرد وانا بلا شرح وانا بما شاه وانا عباية شرك عودي بالله شرك عودي بالله شيطان كهبوغا haddii aan soo qabto fanaanada daada yar Yurubello Yurub waxaan ku leeyahay sanad wanaagsan wanaagsan wacan magacan Yurubello waa laba magac aad u qurux badan moodeen la isku geeyay yaa ku bixi yaase xagiisa kugu baxda yurub waxa ii bixisay hooyaday ii bixisay yurub Bellana waxa ii bixiyay muusikiisteena caanka Xasan Cujeele Cajami goormay ku baxday markaan fanka bilaabay maxaad ugu tala gashay sanadkan cusub ee 2014 inaad ku soo dhaweyso inaan heeso ka qaado jacayl ah imse soo bad ku soo tala gashay labo mideedna soo horeysiinaysaa hees la yiraahdo boholiyowga caashiqa yaa qaaday ana qaaday yaa ereedeeda iskale waxa iskale Shucaab Yare aad baa u salaamaya muusiga iyo laxanka waxa iskale waxa tumay Xasan ninka la yiraahdo Nacaan Bacayn muusiga waxa iskale jooqle shireen waxa noogu dhufataa ereeyada bila muusiga boholiyowga caashiqa badankayo labtiyo xubnahayga xubnahayga tegsaday xubnahayga wala noogu dhufayda muusiga wadad
bogsaday naiga wuxuu iga badan yahay timaha wadnahayo dhanka bidix jirkayga dhanka bidix jirkayga inankiygu beerayna kala baqay oorahdee baahida kalgacalka kala oga bogsoonoon dhibta oga bogsoonoon wuu bareeri karayaa inankiygu beerayna kala baqay oorahdee baahida kalgacalka leh oga bogsoonoon dhibta oga bogsoonoon wuu bareeri karayaa wow hees baa meesha ka dhacday haatana waxaan ku soo dhaweynayaa fanaanka la loodin laayahay ee liibaan jigjiga liibaan mar kale waxaan ku leeyahay sanad wanaagsan waxaan ku weydiinayaa magaca jigjiga waa magac kaa daaweyn xaguu kaa raacay yaase kuu bixiyey waxaa iga raacay magaalada Nairobi yaa kuu bixiyey waxaa ii bixiyey حبيبي waan gartay maxaad sanadka cusub aad ku soo dhaweynaysaa sanadkii tagay 2013 aad ku soo go'tinaysaa waxaan ku soo dhaweynayaa hees cusub oo la yiraahdo fahmo waxa sameeyay erayada maxamed cilmi dhiiso abwaankeena fadhiya laxankana waxa saaray Saciid Nuur Guure muusigana waxa tumay Xasan Ujeeri Ajabi bal waxa noogu dhufataa iyadoo bilaa muusiga dhowreeray fahma tii naftaydaay filsan tii haweenkay firfircoon wanaagay فهمة ذي نفتيداي فيلسان تي هوينكي تفرعون وناجي فرعدي وحنان يو فرحتي أدوكي فهمة ذي نفتيداي فيلسان تي هوينكي فرحتي وحنان يو فرحتي أدوكي وحان كفريا سيرت لغو مفاني أفرفري فريماها أفسقي وجيتكو أفسيري أمانة ذا وحان كفريا سيرت لغو مفاني أفرفري فريماها أفسقي وجيتكو أفسيري أمانة ذا أو في سنة أبقو فضوضاني وليقا يكفيرا في النوله أنا في الحمانو فضيد أشقا
أو في سنعبكو أفضلاني وليقا يكفرا في النور أنا في الحمانو فضايد عشقا فضايد عشقا فهمة دي نفتيداي تلسن دي هوينكي إذا فرس مغولي فالحدي السمان يو فصليو أبوني فهمة دي نفتيداي تلسن دي هوينكي إذا فرس مغولي فالحدي السمان يو فصليو أبوني خط البيت كموغاي ميتا في السناياي قسم ضحن كيجيو فوريكي كالقعالكاي فكرتي جعيلكاي خط البيت كموغاي ميتا في السناياي قسم ضحن كيجيو فوريكي كالقعالكاي فكرتي جعيلكاي أو في سنعبكو فضاني وليقا يكفرا في النور أنا في الحمانو فضايد عشقا فضايد عشقا haddii aan intaa uga gudubnay heesta oo ku luqeynay liibaan jagjago daawade haatana aan ku nasanno abwaanada barnaamijka igu martida ay ka mid yihiin abwaan bilig abwaan nuuradiin iyo waliba abwaan maxamed cilisow waxaan haatan ku soo dhaweynayaa aan leeyahay sanad wanaagsan abwaan nuuradiin wanaagsan oo wacan abwaan maxaad ugu tala gashay sanadka cusub ee 2014 marka hore soo dhaweynay sanadka cusub marka xig waxaan ugu tala galay saar iyo gabay maymay ah bal noogu dhufo qorax soo baxdo daruur aan ka sokeen saacaba aan qarin aqoontu waa sida sadii kala waxaan lahaa sida guroob da'ay saban barwaaqa lagu jira dhulkuna doog la siman yahay nimcadu alle waa sida sadii kala waxaan lahaa Soomaali idilkeed saqiir iyo kabiir dawlad saacida sakayno timide sadii kala waxaan lahaa muwaadin saafiya xumaan aan lagu sifeen xilsida aan seexano dadka wada saacida wadaniga waa sida sadii kala waxaan lahaa sadbursi iyo sifihii fircoon sidii musaylabatul kadaab qofka sara doonayo cadaalada waa sinaan sadii kala waxaan lahaa samaan iyo xumaan marna lama sime subanaha wuxuuna faray dadyow aan wada samayno sadii kala waxaan lahaa saluudin haystiyo sabool waxba aanan hayn safar baan wadanaho aakhira loo socdaa qabri baa ina wada sugi sadii kala waxaan lahaa su'aasha qabrigiyo siraadka aakhira kuwa sahal ku mara sirac iyo dhib arag sar yahay naga dhige sadii kala waxaan lahaa